الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan rabaa halkan inaan idinku soo gudbiyo qaybtii labaad ama darsigii labaad ama cashirkii labaad ee aynu uga hadlaynay faa'iidada ay leedahay saliidda zaytuunka ee joofka la yidhaahdo. waxaan uga hadlaynaa maanta 8 faa'iido ay leedahay. faa'iidada koowaad waxa weeyaan waxay atakhallus min alami dahri, dhabarka xanuunada ku dhaca qofka cuntada ku darsada saliidda joofka la yidhahda ee zaytuunka xanuunka way isdaynayaan. xanuunka dhabarka ku dhaca ee dhabar xanuunka ah rag iyo dumarba way isdaynayaan qofka isticmaala. arrinta labaad waxa weeyaan ashucuur biraaxa, qofku wuxuu dareemayaa markuu cuntada ku cuno ama u ismariyo raaxa ayuu dareemayaa, jidhkiisibaa qaboobaya, raaxa ayuu jidhka ka dareemayaa. arrinta saddexaad waxa weeyaan yuqawi shacra wa yutiil, haddii timaha aad marsato saliidda joofka ee zaytuunka ah timihii way kuu dheeraynaysaa. laba, timihii awood ayay u yeelaysaa. anigana waan tijaabiyey arrinta noocaas ah. timaha markii ayagoo khafiifa ay kugu yeelaan haddaad saliidda isticmaasho awood ayay yeelanayaan, timihii qaro weyn ayay timuhu yeelanayaan, wayna dheeraanayaan. arrinta afraad waxa weeyaan attakhallusu min alxika, dadka cadhada qaba ama jidhka meelaha laalaabka ah ku qaba nabarada iyo waxyaabaha saas oo kale ama cadhada wixii la dhihi jiray qaba, ayadana way ka nadiifinaysaa oo way ka caafinaysaa oo way la dagaalantaa. cadhada nadaafad xumi bay ka dhalataa, nadaafad xumida iyo bakteeriyada nadaafad xumida ka dhalatana way la dagaalantaa saliidani. arrinta shanaad waxa weeyaan mudaadatun bitasaaqudi shacar, timaha inay daataan oy dhacdhacaan oy kaa jajabaanna way la dagaalantaa. ama waxaa la yidhaha aflaaqada iyo timuhu inay afko kala jeexmaan oy laba u kala jabaan halkii timba way la dagaalamaysaa saliiddan joofka ee zaytuunka ah. saliidda zaytuunka arrinta lixaad ay faa'iidaysa waxa weeyaan tamla'u lfiraaqaat fi ra's, madaxa meelaha bambanaan ee madaxa timaha ku yaalla ee bambanaan way buuxinaysaa. markaad saliidda isticmaashaad madaxa iyo u isticmaashaad marsato meel kastoo tintu ka go'day oo tintu firaaq kaga jirtay way buuxinaysaa. arrinta toddobaad waxa weeyaan inkhifaad mustawa sokor, sokorta dadka qaba ama sonkorta dadka qaba hoos bay u dhigaysaa sonkortoodii ilaa marka dambe ay ka baabi'iso oy ka tirtirto. markuu cuntada ku cuno qofku jidhkiisana uu mariyo, marka laba kayfiyu u isticmaali, korkana wuu marin oo qofku wuu isku duugayaa oo wuu iswada marmarinayaa jidhkiisa, midda kale cuntadana wuu ku cunayaa. biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sonkortiisa hoos bay u dhigaysaa ilaa marka dambe ay ka takhallustoy tirtirto. arrinta sideedaad ay faa'iidayso waxaa ka mid a saliidda zaytuunka ee joofka la yidhaahdo inkhifaadu daqdi dembi, dhiig buurka la yidhahdo ama dhiigkarka la yidhaahdo ee kor u kaca qofka hoos bay u dhigaysaa ilaa ay dhiigkarkaaba laga yaabo marka dambe inay takhallusto oy baabi'isaba oo qofkii dhiigkarba laga waayaba. faa'iidooyinka marka 8 ah ayuu qofku ka faa'iidaysanayaa. marka 8 faa'iido hal mar ood cuntay baa 8 ka wada helaysaa, iyo kuwii cashirkeennii hore ee koobaad ku jiray ama baat 1 ku jiray. baat 2na waxaan kusoo kordhinay 8 faa'iido, kuwii horena 9 faa'iido ayay ahaayeen. waan sii wadaynaa insha allah faa'iidooyinkeeda ay culummada atibadu ka qoreen, marka cashirkeenna la soco insha allah.